بسم الله الرحمن الرحيم. مركو روحان ugu baaqaynaa Ilaahay laga cabsado amarkiisa hal la qaato sida uu yiri ya ayyuha alladheena aamanu taqullaha haqqa tuqaati wa la tamuutunna illa wa antum muslimuuna. Ilaahay wuxuu yiri dadka iimaanka laga helo Ilaahay ka cabsada cabsida oo xaq idin kuleeyahay ka cabsada wa la tamuutunna illa wa antum muslimuuna. Marka ugu horeysa waxaan ugu baaqaynaa dadka Ilaahay in laga cabsado oo shariicadiisa la raaco oo wixii uu reebay laga hado oo wuxuu dadka fariid la yimaado markay xigta waxaan ugu baaqaynaa arintaas ka dhacday shalay tugaalkayo horta marka ugu horta wixii dhintay waa u tacsiyeenina Ilaahay naxariistii jannaha siiyo wixii laga dhintayna Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo waxa dambe waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo xasiloonida oo meesheedu lagu celiyaan ugu baaqaynaa arrimaha dhinacyada ay qusaysan dhamaantood mar labaad dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay arintaas wax ka qabato awood ugu sareysa wax kaga qabato nabadgelyada halkeeda ku celiso waxaan ugu baaqaynaa dadka oo Soomaaliyeed oo dhan meel jooga nabadgelyo ugu baaqaynaa rabbi ka cabsi iyo nabadgelyo dadka jooga Soomaaliyeed oo dhan ugu baaqaynaa sidaan aad u xustay gaalkacay waa runta waxa ka dhacay dhibaatooyin badan oo kala dambeeyay waxaan ugu baaqaynaa dadka ku nool gobolka oo dhan mudug oo dhan nabadgelyo ugu baaqaynaa dadka wax garadkiisa culimadiisa odayaashiisa aqoonyahankiisu inay nabadgelyada ku isu taagaan oo qof walba wixii kaga beegan ka qabtaan ugu baaqaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim sida uu garaadku u yiri waxaan ku baaqaynaa nabad wixii dhacay waa dhaceen Ilaahay baa qadaray maxay u dhaceen la odhan maayo wixii Ilaahay qadaray waa dhacayaan xilka inagayna saaran waxa weeye inaynu wixii dhacay aan waxba ka daba tagin waxaan ugu baaqaynaa dadka kale ee dhexdhexaadka ah ee magaalada Gaalkacyo degan inay hawsha culays saaraan waxaanu kaloo ka codsanaynaa haddii ay u baahan yihiin in loo yimaado oo beelaha kale iyo deegaamada kale laga soo culaysiiyo hadday u baahan yihiin inay soo sheegaan waxaanu maamulka Puntland ka codsanaynaa inuu hawsha iyada culays saaro oo dejiyo waxa fiican in la wada xaajoodo maxabada la joojiyo inaan wax dambe dhicin waa laga gudbay waqtigii la isdili jiray waa waxaan loo baahnayn waxa maanta Gaalkacyo ka dhacay waxa loo socdaa nabad waxa loo socdaa Soomaalinimo iyo wada hadal iyo midnimo waxa fiican waan ku baaqaynaa haddaan reer buu hodanahay ama dhammaan reer gobolada Soolsanaag ahayn odayaashooda iyo simadooda aanu nahay in xabadda aan loo baahnayn ee la joojiyo saasaan ku baaqaynaa waa tahay ka isimo iyo odayaal iyo waxgarad ahaan marka laga tago baaqanaad warbaahinta marinaysaan ma jirtaa dadaal kale oo aad kaga qayb qaadanaysaan nabadeynta arrintaas oo idin qorshaysan waxay ku xidhan tahay sida loogu baahdo xiriir baanu la sameynay odayaasha qaarkood iyo simada marka loo baahdo inaan soo culaysino oo deegaanku uu ku filan waayo hawsha diyaar baan u nahay waa tahay mar labaad maxaad uga faa'iideysanaysaa jaaniskan oo baaqa Soomaaliya oo nabad baan ugu baaqaynaa reer Puntlandna nabad baan ugu baaqaynaa Gaalkacyana gaar ahaan iyo mudug iyo meesha hadda dhibta ay ka taagan tahay intaba nabad baan ugu baaqaynaa nabadana Ilaahay baa bixiya Ilaahay waxaanu ka baryaynaa kulligeenba in Ilaahay nabad iyo roob ina siiyo abaartana inaga saaro colaadana inaga saaro marka ugu horeysa waxaan ku baaqaynaa ismadana ku baaqeen anana ku ramidnahay nabadgeliyo marka ugu horeysa hadaan nabadgeliyo la helin oo aan nabad la helin waxa lagu jira cadaab walaadi waa cadaab weela kuma dhashay waa ku dhintaa waxaan soo jeedinaynaa hadaan gudanahay ismadanahay waxgaradkanahay halka fadhiya in nabadda la ilaaliyo oo colaadda la baqtiyo dadka wax garanaya ama ismada ama cuqaasha ama dadweynaha ama ciidanka ama dawladda in tabar wixii la leeyahay aan waxba lagala hadhin marka labaad waxaan tacsiir jeedinaynaa dadkii dhintay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo kuwii dhalay ay ka dhinteen Ilaahay samir iyo iimaan siiyo Ilaahay nimanka wax allaale wixii dhintayna jannadii geeyo wixii ay ka tageen Ilaahay samir iyo iimaan siiyo marka labaad anagu hadaan nahay waxgaradka waxaan diyaar u nahay hawsha inaanu ka soo qayb galno waxay nagaga xidhan tahay
sida marba qoladaasi baahi ay noogu qabto waxaanu aad iyo aad u adkaynaynaa oo ku celcelinaynaa inaanu ka xunnahay waxaa dhacay aanaan raalli ka ahayn waqti loo jeedana aanay ahayn waqti Soomaaliya oo dhan dhibaataysan tahay oo mudug had iyo goor dhibaato iskaga jirto waa ka xunnahay ilaahna waxaan ka baryaynaa ilaahay naga aqbalo oo ilaahay naga aqbalo waxaan ilaah ka baryaynaa in arrinta inta naga joojiyo aan wax dambe ka daba imanin baan ilaahay ka baryaynaa waxaan hadalka ku soo gaabinayaa walaaladayow colaada halka ku baqtiya ilaahay ka baqa muslim baatihin way ka dhintaa waa walaalkiin waxa weeye inaad ilaah ka baqdaan dhibaatada aad soconaysa ee mar walba oo ku soo noqonaysa khaasan gobolkaas mudug inaad wixii aad ka qaban kartaan ka qabataan ilaahay ka baqdaan hadalkii waxaan ka baxayaa waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh